gabadhan kaali lagu magacaabay iyadoo bas iska suganaysa mid tuuga inta imaado wuxuu kaxada boorsadii ay kaararka ugu jireen ninkan darbi jiifka ahna tuuga markuu arko ka daba orda keelina wax dhan lama socoto meeshaan muusi iska dhageysanay kuna ciyaaree midkii tuuga ahayna sidoo u soo ordaay meeshan qashinka yaala intuu arko ku dhex dhumana kii kale darbi jiifka ahayna intuu ka daba imaado isagoo qashinkii ka dhex raadinayo ayaa ninkii guriga iska laahay intuu ku soo baxo wuxuu dhahaa maxaa raadinay asagana wuxuu dhahaa tuuga meeshan ku soo dhex dhuuntay midkaana ma ka yeelay wuxuu dhahaa adiga waayo tuuga hadda booliska ku waca kan maskiinka ahna naftiisa uu cabsaday meeshii isaga carar ninkan guriga iska lahna midkii tuuga ahay intuu la hadlo wuxuu dhahaa soo bax shaqada mii soo qabatay kan tuuga ahna wuxuu dhahaa boorsadaada waatana waa ku wada midkan Jona lagu magacaabaa gabadha boorsada laga soo xadaayeen xaaskiisa waaye ninka tuuga ahna isaga u diray si uu boorsada uga soo xado midkan tuuga ahna gacan yariisa waaye wuxuu weydiinaa qorshaaga xiga maxaa waaye Jona wuxuu dhahaa hadda inta baxdid waxa ay doontaa kamera iyo rooti xoogaa kadib Jon wuxuu imaanaa meeshii ay xaaskiisa ka shaqeynaysay xafiiskeedana wuxuu ku galaa kaarkii oo boorsadeeda ka soo baxsaday Jona xafiiskii xaaskiisa markii uu soo galay kaamiradana wuxuu u qarinaa meeshaan kadib saaxiibkiisa intuu wuxuu ku dhahaa si fiican ma ii aragtaa saaxiibkiisna wuxuu u sheegaa in muuqaalka caadi loo arkayo codkana la maqlaayo laakiin wuxuu ku dhahaa ma iga hubtaa inay qoftaan ku qiyaamayso Jonna wuxuu ku jawaabaa war waa ka hubaa qoftaan qiyaanoolay waaye maantana waa kala ogaanaynaa xoogaa kadib Jon isagoo xafiiskii ka soo baxaya waxay iska hor imaanayaan xaaskiisa Kelly iyadana waxay weydiinayaan maxaa meesha ka sameynay Jonna mararoo ka soo taxadar wuxuu dhahaa rootigaagiya ku wada Kellyna rootigii markii ay ka qaadato boorsadii weyneed u dhiibay Jonna iyadoo aan dareemin boorsadii oo ka soo xad u celina iyadana Jon waxay u sheegaysaa in maanta maalinteeda looga ciyaaray waxayna ku dhahaysaa qof ayaa maanta boorsadeeda wuxuu iga xaday meesha baska lagu sugo Jonna xaaskiisa wuxuu ku dhahaa soo lagama yaabo inaad boorsadaada si fiican u raadiyo Kellyna waxay u sheegaysaa sidaas haday tahay inuu isagana markiisa raadiyo isagana boorsadii intuu xoogaa raadiyo soo qabanaa wuxuuna ku dhahaa haddaba ha yimaad celin xoogaa kadib mid kale oo Sam lagu magacaabaa Kelly uu imaanayo iyadana waxay ku dhahaysaa ninkan iska baro Jonna lagu magacaabaa ninkayga waaye Samna Kelly uu la hadlaa wuxuu ku dhahaa